السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وراكسنا صحابي مالك سود نقدا ونسان كسودوا هذا برنامج كينا لبعض وبرنامج كي قلب نمو تاريخ ذو وحي كوبا قطايا فري لبعض كمارس سنة كلام كوني لحية لبعضنا قضى بدأ برنامج كاينو ذي كوسو قد بنا وحكم النقدورة إيران ولا جوار ريجاس كي أيودو في ريسي دنكا إيو تركيا تبوين كي جاس كا يا خسارة سوغاري xanaaqii ayay kala dul dhacday iyaduna goobo ay ka mid tahay xarunta nuclear-ka Dimona iyo meelo kale oo ay Israa'iil leedahay dabkii oo wada kacaya xaaladda oo kacsan iyo wararkii ugu dambeeyay weerarada la isdhaafsaday ayaanu barnaamijka ku faahfaahin doonaa waxa soo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa Iiraan oo dhowr markab ka fasaxday inay ka gudbaan biyo mareenka la yiraahdo Hormuz hadaba yaa iskale maraakiibtaas tafaasiil baan idinkaga hayaa iyo Xisbullah oo iyaduna beegsanaysa goobo muhiim ah tafaasiisha xaaladihii ugu dambeeyay wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahin kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad waa barnaamijkii galabnimo maanta waa maalinimo talaado ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 24 bisha Maarso sanadka 2026 waxaan idin hayaa qodobada ugu muhiimsan wararkii soo kordhay dagaalka culus ee socda Iiraan oo weerar lagu qaaday iyo iyadoo soo jawaabtay oo hadda weeraradeedu hadda ay socdaan iyo khasaaraha la kala gaaray dhinacyada wararkii ugu dambeeyaan idin hayaa balse waxaan idin xusuusinayaa dadka jecel qisooyinka in channelkeena kale ee qisooyinka Nadaara laba aan maanta soo galiyay iyadoo talaado ay ahayd qiso kale oo cajiiba dadkaas halkaas ay ka fiirsan karaan channelkaas qisooyinka Nadaara laba waataay waxaynu ku bilaabaynaa dagaalkan xooggiisa la isdhaafsaday duqeymo culus muxuu ka bilowday dagaalku waa socday halkan waxba iska socday laakiin hadda waxa dhacaya gugaca madaafiicda isbitaalada dadka loo kala wado waa yaabaysa waa si fiican la isu fara saaray saacada ka hor marka dagaalka muxuu ka bilowday waxaan rabaa meeshuu ka bilowday xoogga dagaalka iyo weerarada la isku qaaday iyo sida xaaladdu tahay waayahay haddaba markaan idin tuso telefishinka Al-Jazeera oo warbixino faahfaahsan ka diyaariyay wuxuu leeyahay Iiraan waxay joojisay gaaskii dabiiciga ahaa ee ay u direysay dhanka Turkiga haddaba waxaa la sheegay sababta ay u joojisay gaaskaas Turkiga ay u direysay inay tahay markii Israa'iil ay weerartay goobaha Faris ee dhanka koonfurta Israa'iil waxay khasaare gaarsiisay gaaskii dhanka Turkiga aaday Iiraan marka waa xanaaqday furkay tuuratay kale adiga qaba marka nimankii Iiraaniyiinta ahaa awalay waxay ku hanjabeen waxay yiraahdeen wixii nala ka taabto wuxuudan taabanayna haddaba marka maxay ku jawaabeen aanadi tusoo wararkii ugu dambeeyay haddaba waxaa laga qoray warbixin goordhow waxa leeyahay mawjado sawaariiq ah ayay Iiraan oo cusub riday Nuro News ayaa waxay sheegtay in marka mawjadaha cusub Iiraan ay riday waliba mawjado kale kadib oo hadda iyaduna ay riday macnaa tii labaad ayaa hadda la ridayaa la leeyahay dhanka kale waxaa la sheegayaa in firka gantaalo uu ku dhacay deegaanka nuclear-ka Israa'iil uu yaalo ee la yiraahdo Dimona ee ku yaala koonfurta Israa'iil kanaalka la yiraahdo 14 Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa wuxuu sheegay in markaa firka gantaalo ay ku dhaceen koonfurta Israa'iil gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Dimona la yiraahdo oo nuclear-ka deegaanada uu yaala ah dhanka kale waxaa la sheegayaa xaalad khatar ah inay jirto oo markaa gantaal ku dhacay deegaanka Naqab uu qof ku dhaawacmay dhaawac culus yahay qofka waxa la geeyay isbitaalka Israa'iil ee la yiraahdo Suraka oo Israa'iil ku yaala waxay sheegeen in hal qof uu si xun ugu dhaawacmay weerar kale oo iyaguna halka ka dhacay dhanka kale warbixinada wali way socdaan Iiraan gantaalaha ay riday goor dhaweyd
waxaa ku dhaawacmay 6 falastiiniyiin ah kadib markii gantaal firirkiisu uu ku habsaday meesha la yiraahdo Tel Aviv inuu ku dhacay gantaalka firirkiisa ayaa la sheegayaa. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in kooxaha gurmadka ambalaaska ee la yiraahdo Najmatu Daawud al-Hamra inay markaa maanta oo talaado ah ay soo qaadeen 6 qof oo ku dhaawacmay sida la sheegayo 4 goobood oo kala duwan oo ku taala magaalada Tel Aviv. haddaba afayeen u hadlay kooxda ambalaaska magaalada Tel Aviv ayaa wuxuu sheegay kaliya inay soo qaadeen 6 qof oo dhaawacmay, wuxuuna sheegay dhaawacyada inay isugu jiraan kuwa culus iyo kuwa markaa fudud intaba. ayaga 6 dhaawacantay iyo intaasa wax noqotay iyo waxaas xisaabtaas waa iska tahay xisaabta. laakiin meeshan maxaa ka fahmaynaa? waxaa ka fahmaynaa in siday tahay la isu duqeeyay. waxyaabaha qosolka la aridey tusinaya wakaaladda wararka Turkiga Anadolu waxay keentay sawir keentay. waxay tiri firira ku dhacay meel heblaayo gantaalkii oo firiray way la leeyahay. firirka meeshuu leeyahay arkaynaada. firirkii aniga madaxa qabsaday kan ma firir ahaa gantaalkii xaguu leeyahay. marka aan aragno firirka ay wakaaladda wararka ay soo bandhigtay ay leedahay firirkaas ayaa Tel Aviv dadka ku baabi'iyay oo waxa la leeyahay firira ku dhacay meeshaas uu kala firiray gantaalka. halkii firir ayaa noocaas noqonaya la leeyahay. marka sheekadaasu halkaasay maraysaa. marka xaaladda guud marka waa halkaas duqaymahaas la isku garaacayaa, dhagaha la iska garaacayaa. marka maxaa ka soo kordhay dhanka Xisbullah? maxaa ka soo kordhay? haddaba marka Xisbullah waxay leeyihiin waxaynu duqaynay dhowr goobood oo muhiim ah, laakiin waxaad moodaa Xisbullah in loo xil saaray meelaha sawaariiqda iyo gantaalaha difaaca hawada ay yaalaan. intaysan Iiraan gantaalaheeda imaanin kuwaan waxaa sii ciyaarsiinaya oo sii mashquulinaya droniska Lubnaan laga soo riday. Lubnaan iyo Israa'iil way isaaran yihiin ma kala foga. gantaalka halkan gantaalka waxaan wuu mashquulinaa marka droonkii Xisbullah iyo gantaalihii Xisbullah ayaa kuwaan mashquulinaya. kuwaan intay kuwaan la dirirayaan ayaa jugta culus inta timaado ayaa dhagaha laga garaacaya. barnaamijka saaka maxaa ku soo qaadanay gantaalahaasay gubeen Xisbullah. haddana waxay leeyihiin maanta dhowr gantaal oo kale oo difaaca cirka ah ayaa gubnay leeyihiin. haddaba marka aan aragno wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha laga qoray, Al-Jazeera waxay leedahay Xisbullah waxay bartilmaameedsadeen gantaalaha difaaca hawada Israa'iil waxayna yaaleen deegaanka la yiraahdo Macaalot. Xisbullah waxay tiri waxayna u isticmaalnay oo ku garaacnay diyaarado daroon ah, waxaana weerarkaasi ujeedadiisu ahayd in la baabi'iyo gantaalaha difaaca hawada ee ay lahaayeen ciidamada Israa'iil ee dhanka waqooyiga qaabilsan. halkaas disable laga dhigay, waa la curyaamiyay, curyaana laga dhigay moogtay. dhinaca waqooyiga waxaa ku dhacay curyaanay noqdeen, wax difaacaya waxba ma jiraan lagu leeyahay. nimanka Xisbullah ahaa halkaanay ka soo galayaan markay kuwaan ku daaliyaan ayaa waxaa lagaaga imaanaa 4 barjiho markaasaa jugta lagaa gelinaa, nagta lagaa saaraa. marka xaalkaasu isaguna halkaasuu marayaa. wararkaasaa soo kordhay. dhanka kale dowladaha Qatar, Saudi Arabia, Bahrain iyo Kuwait dhammaantood waxay sheegeen in weeraro lagu soo qaaday. droniska ayaa lagu soo weeraray. waxaana la sidoo kale ay sheegtay Imaaraadka in gantaalo xataa ay ku jireen weerar lagu soo qaaday, laakiin wax khasaare ah oo weyn oo la soo sheegay ma jiraan. laakiin qolo walba waxay leedahay waan iska difaacnay oo waa iska caabinay. hawsha iyaduna halkaas ay maraysaa. dowladda Ciraaq ayaa iyaduna war cabashaa soo saartay. waxay leedahay qarannimadayda lagu xadgudbayaa. Iiraan waa imaanaysaa, waxay rabtay jugta ka geline. Israa'iil iyo Mareykan waa imaanayaan jugta kale. war annaga maxaa nahay? war annaga qarannimo la isku xadgudbaa ma la isku hayaa meeshaan. yaa qarannimadiisa maaratay meel ugu xiran tahay.
qarannimadiisa iyay u badbaaday qadara jugta lagu hayaa sacuudiga nagta lagu hayaa kuwait bahrain yaa nool gobolka marka ciraaq waxay ku leeyihiin qarannimadeena meel looga dhacay ku leeyihin dhinac kasta annaga waa iska kaana soo maraa wadda camal kanaa soo maraa waa kaas marka hawshaasoo halkaasay baraysaa qadar xayeysiisa kadib waxaan gelaynaa warar ka soo kordhay marinbiyoodka hor kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa barnaamijkii labaad maanta talaadaan idiin soo gudbinayno haddaba barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee aanu soo ururinay ayaynu idinkula wadaagaynaa haddaba barnaamijka qaybtan ugu dambaysa waxaynu ku faahfaahinaynaa marinka hormus haddaba hormus maxaa ka soo kordhay iiraan maanta waxay fasaxdaa layidhi dhowr markab iyagoo arkaya kuwii maraykanka iyo kuwii kale iiraan midkay rabtay fasaxe soco kii kale isku soo marana asagay u taalaalle maraakiibta marka maanta loo feesteeyey meesha maray oo kalsoonida iiraan ku maray yaa waaye haddaba aan idintuso goor dhaweyd ayaa warbixinta soo dhacday waxaa leeyahay waxaa la furay in yaroo kooban oo xadidan maraakiibta ganacsiga xamuulka qaada ayaa loo furay waxaana ay mareen sida la leeyahay marinka hormus haddaba faahfaahinta way sii socotay waxaa leeyahay wararkii ugu dambeeyey oo ay heshay shabakada aljaziira waxay sheegayaan in loo fasaxay 2 markab oo kuwa gaaska qaada ah oo hindiya ay leedahay oo la kala yiraahdo baayeen gaas iyo xaaj faasant la yiraahdaa markabka kale ee isaguna la fasaxay ee shidaalka waday iyo gaaska wuxuu ahaa markabka la yiraahdo Bryant Gold kaasoo la sheegay in uu markaa u rarnaa shirkad laga leeyahay wadanka Shiinaha ayuu u rarnaa Chinese miya ha soco Hindiya miya soco Ruush miya soco haye macalinka weyn iyo xirtiisa ma mari karaan meeshaas markaa hawshaas ka socota